السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلة وحن الله سبحانه وتعالى إنه يدينا إنه إنا إلاليه وإنا حفظيه وإنا شرفه وإنا أستره وإنا كراميه دلكنا يدين تنا يدينا ذينا وصقه دولة عدالة كردستان أو إلهي شرعي سينا كرد غدا والنظيفة وأمان يستقرار إنه هرسيدنا إلهي سبحانه وتعالى هينو سهلو وهين السيو إننا هينغا يالو كوا sababteeda la yimaada inta kadib sidaan hore ugu ballan qaaday waa xalqadii ugu dambeysay oo aan rabo Facebook inaan kaga ambabaxo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka codsado inay i cafiyaan oo miskiin baan ahay daciif baan ahay kolay gafaf badan baa dhacayay sanadkii ugu dambeeyay 2023na xaaladu caadi ma ahayn oo waa iska garanaysaan waxa la yiri haddaad aragtid ninuu arigiisa bahal ku jiro orod yare waa la yiraahdaa laakiin ayaan dareen lama yiraaho waxay kaloo Soomaalidu tiraahdaa ninku hadduu ambado reerkayga yaa arkay kama xishoodo nin magaaladiisii iyo carruurtiisii la duqeynayo sababta loo duqeynayana aan garanayn waxay ila tahay wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay laakiin muhiimaddu waa aakhirada ee hal is cafiyo waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo 4 qodob oo aha ku saabsanaa Puntland iyo SSC khaatimo oo aan rabo inaan kaga ambabaxo xogta ugu dambaysa asaaska Puntland baan wax ka oran doonaa qodobka koowaad qodobka labaadna dardaaran iyo talaan reer Puntland u diri doonaa qodobka saddexaadna xog iyo xasuusin baan u gabagabayn doonaa reer SSC iyagana talo iyo dardaaran baan uga tagi doonaa insha Allah waxaan ku bilaabayaa asaaska Puntland iyo xilligii la asaasay 98 maxaa ka fulay wixii loo asaasay maxay ahayd ujeedada loo asaasay first maxay yeelay inta badan dhalinyarada hadda siyaasadda ka faallootaa waa bacda Puntland weeye waa dadkii waaga dhashay amaba waxay la filihiin social media markay dawladda Soomaaliya burburtay 91dii saad ka war haysaan dadka Soomaaliyeed 18 gobol magaalada Muqdisho la dhisay oo dadku waxay hanti la haysteen halkaas ay galiyeen halka ayaa Soomaalidu deganeyd dagaalka sokay markuu dhacayna nin waliba ilmihii intuu gacanta qabsaday bay waxna wadamada dariska u carareen intii wadooyin heshay oo haleeshayna waxay ku soo laabteen magaalooyinkoodii iyo garoon zero ah muddo 7 sano ah oo hadallo shisheeyuhu ay wadeen oo marna iyagu ay bilaabayeen marna iyagu ay xirayeen aan wax macna ah samayn oo la oran jiray dib u heshiisiinta Soomaalida kadib baa la isugu yimi Puntland in la asaaso Puntland asaaskeeda waa la isku khilaafsan yahay nin xogogaal ah oo la yiraahdo Ali Daacuun oo oday reer Puntland wuxuu yiraahdaa fikirkan wuxuu ka yimi Allahu naxariista Garaad Cabdiqani Garaad Ali Garaad Cabdiqani Garaad jaamac oo ka soo xanaaqay buu yiraahdaa Hargeysa iyo Cigaal dadka badankiisuna waxay yiraahdaan barnaamijkan waxa hogaaminayay oo fikirkaas qabay Cabdullaahi Yuusuf oo muhiimadiisu ay ahayd inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo kulli ala xaal cid kasta fikirkaas ha ka yimaado wuxuu ahaa fikir la mahadiyay oo dadka halka degani ay isugu yimaadeen dadka halka dhistay oo maamulka Puntland la baxay hartiga reer badan baa weheliya waxa weheliya beesha sida daarood oo la yiraahdo leelkase nimanka Carab Saarax la yiraahdo weheliya qabaayil badan oo Soomaaliyeed halka degan oo beelahan gabooyaha ayaa kamid ahaa marraba inaan waqti badan geliyo muhiimaddu waxay tahay update inaan siiyo dadka dhalinyarada laba qodob baa ugu muhiimsanaa dastuurka Puntland qodobka koowaad wuxuu ahaa in la helo oo laga hawl galo sidii loo heli lahaa dawlad Soomaaliyeed oo Puntland ay hormuud ugu noqon lahayd in la helo dawlad Soomaaliyeed qodobka labaadna wuxuu ahaa in dadka deegaanadaas oo intooda badan hayb wadaag ah ay samaystaan cudud ciidan maadaama dagaalkii sokeeyo uu baahayo goosataduna markaa dardar ay ku socotay koonfurta Soomaaliyana wali dagaalada sokeeyo ay ka socdeen in cudud ciidan la helo
oo dadka yacla iskaga yiraahdana qodobka labaad buu ahaa marka qodob saddexaad baa jiray oo dadka aan loo sheegin laakiin oo ahaa Cabdullaahi Yuusuf oo ahaa mishiinka ugu weynaa meesha waday inuu ku socday Muqdisho oo ninka hadafkiisu wuxuu ahaa in uu dowlad Soomaaliyeed helo madaxweynaha uu ka noqdo qodobka koowaad ee priority-ga ahaa ee muhiimad weyn lama siin oo ahaa in dadkaas iyo deegaanadaas maamul sal adag loo sameeyo laakiin waxa priority-ga la siiyay qodobkii labaad oo ahaa raadinta dowlad Soomaaliyeed akhiiranna waa tii qodobka la xaqiijiyay oo markii ugu horeysay ay fadhiisatay dowlad Soomaaliyeed fila Soomaaliya Puntland marka reeraha dhistay oo ay ugu muhiimsan yihiin reeraha hartiga la yiraahdo waxay ahayd xilliga la dhisay waqti reerahaasi ay reero walaala yihiin dhaqaale ahaan aan wax badan la isku dhaamin siyaasad ahaan aan wax badan la isku dhaamin dalka dowladda Soomaaliya oo ka burburtay dadka ay ka wada burburtay markii la isugu yimi Garoowe oo dadku halka ay wax ku wada dhisteenna dadka galaasyaal la kala siiyay galaasyada la kala siiyayna waxaad moodaa inay ka warqabeen barnaamijkii la oran jiray 4.5 ka ee Ismaaciil Cumar Geelle Soomaalida uu Djibouti ugu soo sameeyay markiiba waxa la kala noqday dad kala level ah oo aan sinayn arintana waxa ka macaashay oo markiiba hormuud ka noqday dad aad moodaysid inay xanuun gaar ah qabaan ama aanay ku qanacsanayn dadku inay wax wada yeeshaan oo ay siman yihiin example ka aan siinayna waxa weeyaan Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay una xariisto priority-ga wuxuu saaray koonfurta Soomaaliya cadda waatuu meesha ku wareejiyay cadde weli Cabdullaahi oo madaxweyne ah oo aan xilka wareejinay shirkii Imbagaati uu socdo oo Maxamed Cabdi Xaashi uu yahay madaxweynaha maadaama uu xogeenkii ahaa ayaa ninka Faroole la yiraahdo oo wasiirka maaliyadda ah wuxuu ka goostay korontada iyo shidaalka ka goostay madaxweynihii Puntland oo madaxweynihii wax badan baan waxaan darsay inaan wax ka ogaado nacaybka Faroole iyo cuqdada uu qabo meesha isalka ku hayso Faroole finally Adam Muuse waatu meesha qabsaday waati gacanta laascanada ay ka baxday muhiimadda laascanada ay gacanta uga baxday waxa la yiraahdaa qayb waxa ka ahaa kursi raadinta Cabdullaahi Yuusuf oo igad iyo Ethiopia oo dabada ka riixaysay oo isaga wax la waday ayaa waxa ay ku qancisay inay meesha laascano tahay meel aan Puntland gacan badan ku lahayn isla markaana ONLF ay center u tahay saldhig ku leedahay dhaqaale badan laga siiyo saadaradeed uu aqbalo si wadanka uu maadaama madaxweyne noqonayo in uu aqbalo in wadanku uu madaxweyne soo ka noqdo sikin in koonfuriya waqooyi loo wada hadlo nimankaasna maadaama ay Soomaaliland hadda meesha ku dhowdahay magaalada Laascanood gacanta laga bixiyo khaday gacanta ka baxday oo Laascanood gacanta laga bixiyay 2007 wali Puntland kama aanay tanaasulin in ay sii sheegato sikin cadde waxa madaxweyne noqday Faroole waxa muhiima dadku hadda waxay isweydiinayaan luqadda uu juxa ku hadlayo saad ka war haysaa ninkaasi saddex eray marka uu yiraaho eray baa Somaliland ah dani ninka la yiraahdo dhowr eray marka uu yiraahdo eray baa Somaliland ah ujeedadu waxa ay tahay marka ka dambaysa Faroole ninka la yiraaho wuxuu u ictiraafay Somaliland inay tahay dawlad wuxuuna kula heshiiyay inay xadka yoocada ku soo gaaraan si nabadgelyo ah isaga garashadiisa wuxuu yimi qurbaha isaga oo madaxweynaha Puntland Faroole waxa la kulmay jaaliyad reer Khaatuma ah reer Isiya la kulmay su'aalaha la weydiiyay waxa uu fayoojarka ka damacsan yahay maadaama madaxweynaha Puntland yahay Puntland dhulkii la ogaa ay tahay inuu aqbalo inuu meeshan xoreeyo oo ka hawlgalo iyo inuu aqbalo in maamulkan SSC oo lala shaqeeyo oo laga qaado xisaarka iyo dagaalka lagu la jiro haday noqoto golaha federaalka oo toos loogala dagaalamay oo mas'uuliyiin Puntland ay kala dagaalameen ilaa in Cabdirashiid Faroole wuxuu kaga jawaabay waxa israacay laba nin cabaar markay socdeen ayaa nin wuxuu yiri walaalow dhinacan aan ka maro Soomar buu ku yiri cabaar hadii la socday hadana wuxuu yiri walaal dhinacan aan ka maro Soomar buu ku yiri cabaar hadii la socday wuxuu ku yiri walaalow dhexda aan galo wuxuu ku yiri walaal ma maqlaysaa laba dhex male buu yiri labo dhex male Faroole wuxuu ahaa ninkii diiday dhaawacii kalshaale in la geeyo Garoowe lagu daaweeyo
laakiin mahad ka gaadho reer gaalkacyo ayaa aqbalay oo gurmad usfidiyey oo dhaawaca waxa lagu gadaaweeyay gaalkacyo lagu gadaaweeyay sakinna wixii qaadmiyay waxa loo qaaday Nairobi aad baan uga mahad celinayaa intii gacanta ka geysatay isagoo madaxweynihii Puntland garowe xukumo laascaanada iyo boohoodle isaga laga haysto isaga ay ahayd inuu difaaco inuu taakulo dhaqaale iyo mid military bixiyo ayuu wuxuu diiday dhaawacii in lagu daaweeyo waxaan idin soo wadaa luuqadan juxa uu ku hadlayo iyo dani ay ku hadlayeen oo inta badan erey kasto ay yiraahdaan ka saddexaad oo Soomaaliland yahay meesha uu ka yimi dadku ma jecla in wax la xasuusiyo waana sababta anigu aan uga baxayo siyaasadda iyo Facebook intaba maxaa yeelay waxaan anigu diiday oo iga dhaadhici weyday inaan qofka ka aqbalo inuu saddex qof noqdo anigu hal qof baan ahay halka qof baan ahaanaya farowle wuxuu sameeyay inta kaga maharin waxa siyaasadda Puntland jaangooya oo dhawaan hadda aanan hubin in laga saaray niman u badan reer nugaaleed oo Aaran la yiraahdo oo dhaqaale badan haysta oo nimanka priority-goodu uu yahay dhaqaale inta badan sababta loo qoorsagaarada loogu haysto laascaanood iyo SSC oo aan waxba loogu maqnayn isla markaana loogu hayo Somaliland isla markaana loo sheeganayo in mas'uul laga yahay inta badan waxay ahayd qadiyad dhaqaale maxaa yeelay garowe way fidaysay wa ficlan inay fido oo garowe ay magaalo dhaqaale noqoto waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay okay nimankaas siyaasadda jaangoynay inta badan laascaanood waxa laga dhex arkayay in dadka halka degan siyaasad ahaan loo weeqo dhaqaale ahaan loo weeqo dalkana that time illa hadda waa isku fikir juxa shalay meena darta tawcilha dalku waa Somaliland iyo koonfur iyo Puntland listen waxaan rabaa dadka reer Puntland ay sabcan dhageystaan waa Puntland dalku waa Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya marka aan adeegsanayo erey bixintayda la yiraahdo nimanka halka jooga han qaranna ma laha han qabiilna ma laha inta badan Faroole iyo teamkiisa iyo Aaran oo reer nugaaleed u badan iyo dani oo iyagu ay soo saareen inta badan waxa ay rumaysteen oo laga qaadi jiray baad la yiraahdo waxaanu qabsanaynaa garowe waxa la hubiyay oo aan xaqiijinay in sirdoonkooda iyo sirdoonka Somaliland ay ka wada shaqeynayeen arrimaha ma hubo dilkii qorshaysnaa in sirdoonka Puntland uu ku lahaa taa ma hubo laakiin in laascaanood la xukumo dadkaasina aanay tashan halkaana aan maamul ka jirin ilaa iyo iminka ka wada shaqeynayaan haddaad dhegeysanaysan maalin dhaweyto oo lagu shaabugeynay in ay did Twitter space-ka oo lagu lahaa horena wax looma weydiin haddana wax loo weydiin maayo waxay ahaayeen niman qurba jooga iyo guda jooga oo reer Puntland ah iyo niman reer Sheekh Isxaaq bay ahaayeen marka way ka go'an tahay in aan meeshaas maamul ka soo bixin haba yuuba ka soo bixina waxay ahayd inay iska daayaan sheegashada inay laascaanood Puntland tahay ninka la yiraahdo juxa dagaalka oo socda ayuu wuxuu yiri annagu hadaanu nahay Puntland kama tanaazulayno mana sii deynano Soomaaliya sanaad sakin wuxuu yiri Somaliland kama tanaazulayso sabab baa la yiri wuxuu yiri labadayadaba idaan wax ku nahay labadayadaba idaan wax ku nahay siyaasiga hanka qaran aan lahayn hanka qabiilna aan lahayn ee garowe ka talinayay ciidamada lagu cabsi gelinayo ee baadda looga qaadayo waa ciidamo dhulbahanta iyo warsangeli u badan waa inamadii ay ahayd iyagu inay samaystaan waa ciidankii Cabdullaahi Yuusuf waxna uu xamar la aaday waxna uu ka tagay waa ciidankii wargeyska jamhuuriyadda uu qori jiray 48 saac ciidan dagaalami kara sahaydiisa sita gaadiidkiisa wata tababarkiisa wata daraawiishta Cabdullaahi Yuusuf jirta waa isla ciidankii oo Soomaaliland u wareegay oo ay waayeen han qaran oo ay ku dhistaan iyo han qabiil ay ku kasbadaan Muuse Biixi bay u kareysnaayeen $40 iyo $30 buu siin jiray calankiisana uu dhibo qaato ku yiri iyagii baa lagu handadayay ilaa iyo qardho iyo garowe markaasaa baadda looga guray iyaga markaasay waxay garan waayeen inay ka tanaasulaan sheegashada ay sheeganayaan leeyahay Soomaaliya waa Puntland inta waxa dheer waxaan nimanka hoos fadhiyay niman dhulbahanta ah oo xilal u hayay oo iyaga xilal u hayay haddii ay damiir leeyihiin ama waxin diina oo ay damqanayaan sida umadu loobeen waxa dhigis daba yaala bay day lahaayeen
waxay darajo ku sheegayaan waa daleel maran niman baa u diyaarsaday inay dana ku gaadhaan wixii laascaanood dil ka dhacayay ee haldoorka lagu dilayay ilaa cadowga haysta baa dilayay Sooma miyaad wali aragteen niman dhulbahantaa oo garow jooga oo intay shir jaraa'id qabteen ama dunida la hadlay ama Soomaalida la hadlay oo yar waa cambaaraynina ama dadka laga daayo miyaad aragteen wali niman dhulbahantaa oo garow jooga waxay doonaan baha sheegteen ama xildhibaande ama madaxweyne ku xigeende ama wasaarade wali miyaad aragteen niman fuujarka iyo siyaasadda Soomaaliya faala ka bixinaya inta waxa dheer waxa loo isticmaalaa oo loo dhiibaa shaqada makarafoonka waxa lagu caayaa Soomaali anagu waxaanu nahay dad midnimada jecel waxaanu nahay dad sharafta Soomaalida ilaaliya waxaanu nahay dad midnimada wadanka geeri ka xiga laakiin maxaa dhacay waxa la shaqaalaysiistay wax ma yaqaan dawladda Soomaaliya lagu caayo wax ma yaqaankaas iyo nimanka garow jooga inta ay Soomaalida xamar caayaan oo dawladda federaalka ama Xasan ha ahaato ama Shariif ha ahaato ama Farmaajo ha ahaato intay nimankaasi caayaan xamar iyo dawladda Soomaaliya Hargeysa iyo asana ma caayaan baladigu isweydii nimanka dhulkoodii haysta oo garow dul fadhiya oo Soomaaliya kala goynaya ma awoodaan one word inay ku yiraahdaan 24 saana waxay caayayaan Soomaali ha caayeen waxay ku caayayaan miday mikrofoonka u dhiibeen oo SSC ka soo jeeda okay hadii Puntland loo aasaasay in Soomaaliya lagu raadiyo maxaa ka hirgalay first time Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay ha naxariisto wadada doonaba ha maray wuu ka dhabeeyay Soomaaliyana way ka macaashtay ilaa haddana fiila Soomaaliya waa taa la fadhiyo intii ka dambeysay in Soomaaliya la lugooyo oo la dagaalamo mooyaane Puntland Soomaaliya irbaduna ma gelin waxay sheegteen oo ku faaneen inay yiraahdeen hooyada federaalka maxaa federaalkii loo qabtay muxuu federaalku u faa'iideeyay Soomaali inta iska daysid Puntland oo istaahishay inay qaadato magaca jamhuuriyadda Soomaaliya ay Soomaaliya u soo haajirtay oo Soomaaliya ka macaashtay oo nabad ka heshay oo barwaaqo ka heshay inay jamhuuriyadda qaadato nin kastoo garow yimaada wuxuu u socdaa Muqdisho oo aan la garanayn wax yaala oo aan lahayn wax mustaqbala oo istaahishay in laga guuro haddaan laga guurayna siyaasadda Soomaaliya laga raro halkii garow loo diyaarin lahayn caasimadda Soomaaliya noqoto waxay noqotay meel wax yaala inta laga urursado xamar lala aado okay kuma dheeraanayo Puntland waa taas sidii wadadii loogu taagalay way ka laaxatay mar walbana waxa isu bedelayay niman ganacsato ah oo xoolo doon ah ninkii loo oran jiray Cabdiwali Cali Gaas ninkaas ma hubo inuusan xidhiidh la lahayn SNM ama intii uu joogay aanay ka hawlgelin sirdoonkoodu garoowe wuxuu taraygareeyay inuu la dagaalamo laakiin cagaha la qabtay isweydii wuxuu foroolo colka ula ahaa Cabdiwali Cali Gaas wuxuu ka dhaadhicin waayay inuu la shaqaysto SNM inuuna aqbalo inay yuucada si nabad ku soo gaadhaan Cabdiwali wuxuu xaawilay inuu la diriro laakiin lugaha la jiiday haddaad dhageysanayseen xafladii ugu horeysay ee Daniel lagu calaam saaray foroolo wuxuu yiri codsi baan u dirayaa Somaliland waxaana ka codsanayaa inay faleedyaal ka noqdaan oo meeshii ay ka yimaadeen inay tukaraq ku noqdaan ma ka codsanayaa hadduu dani idin lahaa nimanka xidid baan la ahay waxay ahayd baad laakiin waxaan rabaa inaan u sheegno maanta dani oo xilka ku soo laabtay oo aad ogeydeen dagaalka markii uu soo galay inuu socday oo aad ogeydeen sina dagaalka inuu uga baaqsan kari waayay maadaama Axmed Karaash oo weligiiba ay ka go'onayd in nimankan lala dagaalamo oo dagaalka feerastiba wax ka galay haddana aad xasuustaan ereyga qiimaha badnaa ahaa maxaa iska khusay gabadha laascaanood xabada dhagaxa ka tuurasay gabadha baargal ka codeynaysa aad xasuusataan markii laga soo rarayay godad iyo meesha la yiraahdo garaaca taangeeda laga soo rarayay inaanay Puntland wax shaqo ku lahayn oo aad xasuusataan campaign-kii uu ka dhaxwaday Suldaan Garaasi Garoowe inaanay Puntland wax shaqo ku lahayn haddana waxaan uga mahad celinaynaa in maanta reer Puntland shacab iyo xukuumadba aan mar dambe looga caban doonin cadow baa gacanta noo geliseen
oo intii karaankooda ahayd ay qayb ka qaateen in cadowgan waddanka laga saaro cadowgaasna uu maanta